madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo muddo yar markuu joogay wuxuu Itoobiya intaana Itoobiya galin baan wax yar dib u yar noqonaya raal noqdo qodobada way xasaas siday tahay baan u kor istaagaya sirtaana waan qarxinaya inta aanan arinta galin baan wax idin sheegay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markuu xilkan qabanayay ee riyaaqeena nacamleena sabcineena nikinayna in laanta ku taageerayn wuxuu qalbigana ku gato umad Soomaaliyeed badan ku gatay Itoobiya waa cadawganaga dhageysta Itoobiya waa cadawganaga waa la dagaalamayna dalkan ka saarayna ayuu nagu yiri madaxweynaha waa madaxweynaha Soomaaliya weey Itoobiyadii shalay wali waa taagatahay dastuurkii shalay Itoobiya ku dhaqmayso wali way ku dhaqmaysaa dhaqankii ay shalay lahayd Itoobiya wali way leedahay madaxweynaha Soomaaliya waxa weeye dadkii madaxda ahaa ee siyaasiyiinta ahaa wuxuu inoogu sheegay inay Itoobiyaan kalkaal yihiin inay Itoobiya ma garanaysaa ay u nacamleeyaan inay Itoobiya ka marqaataan buu inoo sheegay balagaysta madaxweynaha Soomaaliya weey sidii baan ku riyaaqnay ilaa Itoobiya waa cadawganaga sidii baan ku muxuboonay ilaa Itoobiya waa cadawganaga raacnay madaxweynihii dabagalnay madaxweynihii raacnay oo ku daba feelnay madaxweynihii maxaa dhacday Itoobiya noo keenay socoto Itoobiya socoto lagu heedi leh oo ciidankeedii wadato ayuu inoo keenay wuxuu yiri waa walaalaheen jeclaadu yiri aad baan uga qiiroonay waan isqarinayay hoos baan fiirinayay nin qowl qaaday baan ahaa 3 sanad dawlad taageeriyay madaxweynahayga intuu ka duulay Muqdisho oo Itoobiya uu tagay waa la muraajacoonaya taariikhda dib loogu noqonay intuu Itoobiya tagay oo asaga iyo ma sha Allah marwada koowaad ay fiyooro qaadeen iyo wuxuu dul dhigay ciidamadii Itoobiyaanka ahaa ee 77 hooyooyinkeegii dooxay ee 77 aabayaashay dilay ee 77 awowyaashay lugaha ka jaray ee 77 Soomaaliya baabiyay Itoobiyaankii shalayto oo 2007 ahayd Muqdisho hooyooyinka hoobiyaha guriga ugu geerayay hooyooyinka ku dilayay caasimadda Muqdisho ee taariikhda iga xoqday intuu fiyooro qaaday buu dul saaray ana duqbilow hoostan ka oynay macnaa qowl baan qaaday waan iska nacamleyn laakiin Ilaahay baa xaqay tusay dhageysta hadalkaygaadu dhageysta Itoobiyada nooca ahayd kuwii hore maysan tagi jirin fiyooro maysan saari jirin raggii aniga ilaayay raggii aniga dilay raggii aniga baabiyay yu fiyooro kor saaray yu fiyooro iyo nacamleen iyo sujuud iyo marwadi koowaad iyo madaxweynihii bay dul saareen fiyooro dul saareen miyaan ka hadlay cid kaada shibaan arkin waa noolo qariyo qayli baan ku dirnay buuq baan ku dirnoo nala dhaayay waxaa sameeyaa lagu jiray bal halka iga dhig Itoobiyadii u lahaa waanu nacamnahay oo waa cadow asoo sujuudayo oo fiyooro saarayo waliba kuwii dhameeyay fiyooro saarayo taariikhda qorayso meel bay taala xaqiiba duqbilow Ilaahay tusay oo uu ku aadaamo umadu qalbigeeda bedeli oo maskaxdeedu bedeli oo xaqiiqdu ka sheegeen halka iga dhig madaxweynihii Soomaaliya ee oranayay Itoobiya waa cadawganaga ee Itoobiya waa iska dhicinayna muwaadin Soomaaliyeed buu dhibano duqbilow qaabka anaga hadlo waan garan lahaa nin qowl qaaday baan ahaa nin calan jeclaa baan ahaa nin dawlad jeclaa baan ahaa laakiin xaq darrada waan arkay Ilaahay baa indhihii furay had intuu muwaadin Soomaaliyeed qabtay madaxweynaha Soomaaliya uu gacanta ku dhigay yuu dhibay Itoobiya u dhibay jabhadii xaq u dirarka ahayd ee 100 sano soo dagaalamayay yuu liiska argagixisada ku daray Itoobiyadii naceebka Soomaaliya u qabtayna way ka saartay liiska argagixisada saacadan iyo waqtigan iyo saacadan aan idin hadlayay taagarahay dastuurka yaanor xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ololf waxa looga aqoonsan yahay inay tahay argagixisho bal halka iga dhig ciidamada Itoobiya wariyaada runta la sheegay war xaqiiqda laga hadli war runta la sheegi waa la gali jabhadeyntan madaxweyne farmaajo waa soo jabhadeen raba sheekh Shariif iyo sheekh muxuu ahay Xasan Sheekh Maxamuud yaa waa loodo iyo way mucaaradeen baan ku haysanay madaxweynaha soo jabhadeen rabo ee jabhadda hadda asaasay yaanu ka hadlaynaa dhageyst madaxweynihii Soomaaliya ee Itoobiya nacsiyay ee Itoobiya ku kaambeen gareeyay ee Itoobiya waa cadawganaga ku hayay asoo ciidan Itoobiyaan watu kismaayo ku weerar ariya been dhig karo ana weega indhaha duubna indhaha ixra والله أنا بينه إنها إحرة ساسا إنها يقول حراين مكاسان قرح كوي علن جعل بانها بين الله شقي بانها حقيقة يدبت واحد جرتر وحيد إنه يقبيالد إيه رير لكوكال عارقوصرية إتوبيانا تايني ريرها كوكالات كادا الصومالي إتوبيانا أي تاي
إثيوبيا أي تاي من أي غيرها الصومالية كوكلات كذان يعني حقيقة سوق هذا عندها إيه حرة من دولة الجعل بارها من عركة الجعل بارها لكن قبيلة بيجوها سودين وهذو جدار دار كيسان حقيقة دار كيسان والله بوس الشل العجل ورجع يالله ورجع بدح بينها الصومالية دوسر السن لكن المواطنة الدلك يسجل أو على يسجل أو وحارها ورجع يالله ودي من يدور الدنيا الصومالي لكن مركي يسوكي جارتي مركي حقيقة يسوكي جارتي أو رنتي يسوكي جارتي والله وان برقرية وكاعد عليك ارتباره رنتا كارلي حقيقة الشيء من حواري الصومالية إثيوبيا كن نعسي أسعيد ما إثيوبيا وطو أو تكني كذا وطو يكسما يكويري أحمد مذوب كويري أنا نعم لنا يا نضق بلو عروك بيرك الشغل أنا نضق بلو يا نعم لنا يا واني ذي كقرية أو حالها موسى ذي كوي بين يا بربجاندن ومد الصومالية كويرين واي وريري دولة ده هذا قاغض على الهلا الصمية إنستوشن هذا اسمه دولة دي ما هتمادو دولة ده هلا من نقطة يا كوي لكن خيانة السعودي رير كارجو سنيو إد لا دجال لبيشو إد لا جلافيريو إد دجال لجوده إد حلك لجا قاضيو إد لبهد دليو أنا أود هيشتو لعبت عن كتك رفلي ميلبان ديجن جبهد بان هذا الشيء أساسي هورها مركان أركيان الدقبروي قوام بك جاري معاه قوام بك جاري هبين عقبان قوان إنتان كجاري أو سوق عبان إله هذا وين واحد إله الدولة دي أنجعلها أنت تاجري أنت أنا واقعي إلهي هو كهر مان دونا إلهي رنتا كشيء دونا إلهي هدي حق يقول هين يقبل كوري إلهي هدي حق يقول هين يقبل هدي حق يقول هين أو إثيوبيا دلك النجل السوقلي أو موادني إثيوبيا لودي أو بين ليسي أو شر اللي يجري إثيوبيا كوحدك بدرو إثيوبيا كلا دجالمية ما أنت إثيوبيا كي تكنيك دي سكتا اسماعيل لجو يري إلهي وحاني هدي حق يقول هين يقبل هدي حق يقول هين إله رنتا يقول رنتا يقول هل الصراحة ري هل كاسنا إله ما رنتا الشيء صدق سنة هدام بيش شيء إله هو الكاسنا ما رنتا الشيء بل لقيست مرك مدحوينها الصومالي قرشوه تاني دي شيء قرشها قوته يدقال كوكود ريبان دي شيء صوماليا هو 4.4 وي 4.4 معنى هذا وحاوي وباور شيرين إن أمد الصوماليات قبيل كاسكودي شيء ريراي سوبرستي حمري سجا سارتي قحوتي سجا دكتي إن أود دود الله يسكنوا قبيل اللي يسكتوا اللي يراد هبلو أنت قاضو هبلو أنت قاضو بل لما نقضي اللي يراد بقيست أنت أنا قال إنجب هذا أنت يا وحي يا إيدي شقية ورما الضبير لا براه مريق لا عم براه ورميل 4.5 wax lagu kala qaadanayo oo dadkii kala carreed oo nin walba tuulo aaday oo waliba Soomaalinimadii laga carray oo anigii ku taagnaana doqol lagu tilmaamay war ma damiir laan baray bal lagaysto beesha kablax dagaalka uu ku waday farmaajan idii sheegaya wuxuu go'aan ku gaaray 4 sano uu joogo inuu magareysay burburiya Jubbaland inuu burburiya Puntland inuu dhulka iyo digada ka dhigo لكن أغلب يشانو ويقرتانو ويفهمانو ويستاقين ويسكدعيانو يعبي يرادين قرشاها وهد السميان دي شيء مركو مجرتين وحكا قادي واي دالك كلانا وحكا قادي واي بيسو قادين قماتكو كوب الأمان دي شيء بل عروة كموادن كصوماليادو مانتي دقيسانا يو حقيقة يرونتا شيء دقيسا كل عيانو بنتا ويقود الدقبلو إذر سفين ما هالدقبلو يقود وكاية إلي هداد دقيس هذا كنت بل لقيس بيسا كومادك بيسا اللي يراد إنا عنيقو كدش دولة الصومالية وحي كل هذا هي أفر حمنود بكل هذا مركي برلمانك إيه واحد لقطه صدح وزير بكل هذا هي دولة الصومالية هل وزير أبوحو إيه وزير كحجان إيه وزير دولة إلا هذا نجيس هل وزير أبوحو إيه وزير كحجان إيه وزير دولة إلا هذا مركي حمنا هل كتاجيهن كبر الله حمو أحمد مذوب الله دجال الله وياه بل نجيس هذا وزير عمر صاحبك وشقينا يا حافظ الله شغدي سويش توا مواد شقي سريوي وزير كارمها الدبدة وزير كحجان كيس وانينا وقاذينه أو بسماه 2007 دم بيبو فرماجة كسوقي بل دقيست معها كلية إنه حري نيكل اللي يرادو قلب النجح كلية إنه حري معه أحمد مذوبين والله دقال الله ما يمه إنه كسمايع عنقبته ساري معه إنه دوبلي عنقبته ساري قرب هري يلوق iyo doolar diyaaradu ay tagaysan ma bal lagayst wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa weeye Mukhtaar ninkay dhahaan baa wasiirku xigeenka waa nin beesha ogaadeen u dhashay baa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr waa ka kari waayay
رئيس الوزراء حاس على الخير وحكيري وروحنا ودوا اثنا كلنس وكيري كان يلي ماي وصوبته بيلها كومده ee Jubbaland degan ama meel walba had deganaadaan ay khayr favor ugu sameeyaan way farmaajo wuxuu xukun dambi ay ku soo oogay wasiirka arrimaha dibadda wasiirku xigeenka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya yu dambi ku soo oogay dambiga muxuu yahay أنا إذين قرحين إذين شاقي دقيست تانا إذين كشاقي جبهدين أنت وصوّا دي جبهد وهذا الصبيصري من العراق الصومالي أنا وايدين قري دونايا دقيست وزير كحجاك وزارة الرماية الدبدة الصومالية وانك هؤلاء كلوضو وانك وزارة هؤلاء الرماية الجده حفيسية هذا جده كلوضوي وزير كالرماية الدبدة مستر عود سفر بوكم مغنى وسفر شقاء أيكم مغنى وحاد على وزير كريمها وزير كحجاء كريمها جده أو حفيز كي سجّو يا وحاوي من قلادي كانت كورنتلا أوتي قلادي تلفون هذا إنترنت كأوتي مده حفيز كي سوقر وروح الباب كده كسوقر عام بحير هذا دور بلاد بلعت هذا كله نبيه ماذا بحين والكورنتا دي ماذا بحين والإنترنت كانت كل شقين إنسان ماذا بحين أنه بيزنس بنا وقلادي بيزنس كه كورنتلا أوتي بيحب اللي وير لعت محايد كغلط وزير كحجاك أرماها جدا أرماها الدبد وحوعي وزير كأرماها الدبد وعي مستر عود بوع وحكير عود أو رجي كرنتدا يا إنترنت ك يا بيها الباب كي تجيه ورمحاد عيب يرم حاسبية إنترنت كنا وان قاصنا النبي يرادين كرنتدينا وان قاصنا النبي يرادين بيل ماشي لما بحنا محاد مستر عود وحير وحوعي وزارة لها هوسا قسيسان وعي إيش بكير وكوسا علنا نمكرة بلا نقبه وزير كارمها الجدع وزير كحياة كارمها الجدع أرمها الدبادة الصومالية والرجل بلانو قبته وحكوير برمة بردا بعمل يقصونه عود وحوعي وزارة مالية إيه بنك قد حيا الرجال شقادة قصي سايب وعي وروحكوير ورنا ماشي كرتها لا قصرية ماشي أن كمبيوتر داير بيسنسيتيف بايالو ورإيميل لو واحد دولة ده هيصدر أيام بماشي كدره ورهدي كرتها اللقاية إنترنت كاللقاية إيه وحاول خلخل بي وزارة الرماية الدبادة الصومالية خلخل بيقال يساوي كوير محايد كخل دنبو يربحيه بيلك تلفون هذا اللي قد السنة تلفون هذا أيها اللي قد السنة وزير كالرماية الدبادة الصومالية مستر عود وحصوعي وزير كحجاء كالرماية الدبادة الصومالية ورا وحكوير دقايس إنت ماشي اللي قاين لها كرتون اللي قوصل لها إنترنت كاللي قوصل لها إيميل بدن يدار بيس كايس كل حياة لها وحيري أوترتي ينكو سيرة يا ويري قسندا وزارة دولاداي كبحي $10,000 كبحي بكويري $10,000 كبحي بيلك كورنتدا إيه ميقرس هيا بيها إيه كبحي ويري سي بيلك إنت كورنتدا لقوص الله وزير كحيقاك يا الرماية الدبادة مستر مختار وحو يرى يا قاسمه وحو يرى وزير دولة وحلو يرى رقي قسيسو دنبو يري ورياضة كالا يكويري وزير كالرماية الدبادة الصومالية يا خدك إيسو قليبيري وحونا إيسا قينا رقي تلفون هذا كدا السدين ومستر بيلا يبقى قد حوي وحو أمر يقول ويري وزير كالرماية الدبادة إن أنت لكاكم كبحي قسندا سيو رقي إنترنت كاينا سيو رقي كورنتادا إنا سيو رقي بيانا إنا سيو كالا يكويري توانين أو مرخاتي وصوك عيست توانين أو مرخاتي يوصوك عيستو كويري كالا يا ميشان إلا فرع رلتا لك هالليا runta la sheegaya xaqiiqda la sheegaya siday tahay ba xaqiiqda loo sheegaya isir safeentan iyo reerkan lala dagaalamayo iyo jabhadda soo socoto ee la rabay lagu argoosto duqbilow bay ka hortagay siday tahay buu uga hortagay aad iyo aad siday tahay ayuu uga hortagay duqbilow raal noqdo wax yar iga raal noqdo qorax waalan baa haysto هذه هذا بروح يسلك طبعا وزارة كشقيسو أيو سوق حيست وزير كحياة كريمة الدبادة وحيري مرخاتي كان نقضة لعقبان برتن كبحينيا $10,000 وحانا كبحينيا $10,000 كرتول لقوصانيا وحانا أمر إيقوسيي وزير كريمة الدبادة الصومالي مستر عود أيا إيقوسيي ويري أمر مرخاتي بكاها كولا كل قريب وفري ويداوريين لعقتيبو كسو بحيي بيل كيبو سيي كورنتاديبو سيي بيل كيبو سيي انترنت كيبو سيي
biilkii buu siiyey biyihii buu siiyey rasiidii ka reebtay bartii buu dhigay wasiirka arrimaha dibadda master caawid baa yimid rasiidyadii buu dhibay waan bixiyay buu yiri farmaajo muxuu yiri isir safeen buu ku jiray qalbi dhagax buu dhiibay oo Itoobiya u dhiibay axmed madoob uu la dagaalamayay waanu ognahay kismaayo saaray cunaqabateen waanu ognahay waxa soo dhan baan la soconaa Itoobiya cadow inooga dhigay wuu sujuudayo wuxuu saaray fiyoor dul saaray bal laga istaqbalo urmaanta runta iyo xaqiiqda ka dhageysto soo fiican uga dhageysto farmaajo wuxuu yiri yom maxaa waraxas ma jirto soo nogaadeen maaha dambi baxar buu igu jira shabaq buu igu jira dagaal baan kula jira raggan sidaan ku ciribtir laa ku jira awd uu dagaalam warnaa waxaan xaq ma ku yiri awdo waraa waxa lagu yiri qablaxnimo wada suma awdo qablaxnimo iyo howlaan loo joog shaqadaada ma wadanaysaa lagu yiri masaadagana waa ku fiijiya awd masaakiin buu noqday shaqadiisi halkaas iska tagay shaqadiisi xataa rag kala wad bal lagayst wuxuu wacay qoladii maxkamaddu wacay farmaajo qoloykii maxkamada ayuu wuxuu yiri dambi degdeg ku soo ooganikaas dambi dhaqsay ha lagu soo dhagish dambi dhaqsay ha lagu soo qoladii maxkamadaha waa yaabay sababaha loo fiijiyay ninkii xeer ilaaliyaha hadda shaqada laga buriyay ee maalin la buray waxyaabahaas ka mid ah bal lagaysh ilaahay baan dhihi noo dilaaciyay oo runtina tusay oo xaqiiqdana tusay isir safeen bay ku jirtay dawladda annaguna caalam baan raadinaynay dawlad baan raadinaynay aqriina dalka adduunyada la mid noqona raadinayn calankayga waa ku jeclay nuurow noolow cadowga waa laga qaban laakiin beenaale Itoobiya waa cadow yiraahdo oo haddana yiraahdo waa walaaleen oo fiyooro saaro dagaal baan la galaynaa dhageyst farmaajo maxkamadii qolay xeer ilaaliyaha uu cadow soo meeshan dambi ma yaala ninka rasiidii wataa maxaa kugu dhacay maya si kastay taaba dambi ku soo oog wasiir ku xigeenkii arrimaha dibadda master mukhtar dambi baa lagu soo oog shaqadii baa laga joojiyay dhageysh shaqadii buu ka joojiyay dambi buu ku soo oog booski wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waa banaaya booskana waxa xaq u lahaa beesha kuumada iskale inuu soo magacaabana waa diiday inuu qof kala siiyana waa diiday wasiirkii iska lahaana shaqadu ka jooji maxaa kala tuusbi dambi baa lagu waayay maxkamadii baa lagu war dambi kuma hena liir dambi sirdoonka qoloyinka sirdoonka wuxuu yiri wadalka ma bixi karo waddanka kama bixi karo master mukhtar waddanka kama bixi karo ku yiri ninaan shaqahayn oo mishaar lahayn guriga wasiir Omar buu ku noolyahay come on I'm telling the truth ana dublo xaqiiqda kaarnay guriga wasiir Omar yu ku noolyahay dul saar ugu noolyahay shaqadiisina waa ka qaaday booskiisi ma buuxin aruurtiisa Ingiriiska dagana inuu aadana waa u diiday sababtu ugu diidana waxa weeye inuu sirtan iyo arinta fashilay yu ka diiday markuu aeroboorkii maadaba sirdoon niman ku reer madaxweynaha yaa dib u celiyay bal lagaysta hadalkayga aad u dhageyso soo qodoba dambigu ku haysta kaaswi booski waa banaaye beesha kuumada iskale beesha absama iskale beesha ogaadeen ba iskale xilkeedu waa banaaye why dhageyso beesha ogaadeen waxay iska lahayd xilka wasiir dawlaha wasaaradda diinta iyo qaafta iska lahayd waliba beesha makaahiil ba iska leh muxuu ku sameeyay farmaajo dagaalka iyo khiyaanada uu ku jiro iyo lugooyada uu ku jiro ilaahay baa xaqi maantay tusay umada runta loo sheegay difaac bay gali dagaal culus baana la qaadi doona insha Allah oo dawladda looga hortagayo dagaal culus oo dawladdan qabyaaladaysan ee qabyaaladu ka buuxdo looga hortagayo ayaa bilaabanaya insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo muwaadinkii Soomaaliyeed ee xaqa ku aadaami jiray waa ka hurdada maanta ka toos waa ka maanta hurdada ka toosay waa ka maanta xaqiiqda sheegayo waa ka maanta runta ku aadaamay laga nasan maayo wallaahi baan laga nasanaynin duqbilow wallaahi oo billaahi baan ku dhaartay inaana duqbilow laga nasanin xaqiiqdu sheegi runtu sheegi waxa jiruuna banaankeena muxuu sameeyay farmaajo dhageysta daran beesha makaahiil ee ogaadeen ee kuumada booska lahayd buu intuu qaylo yirsan ogaadeen kula dagaalama wuxuu sameeyay intuu wasiirkii u yeeray wasiir dawlihi oo qaaftiyo diintu tuu yeeray ku yiri safiir baan ku magacaabaya safiir yaa ku magacaabaya meel heblaaya tagaysa waa safaaradan jirin oo uu og yahay oo lugooye oo wax ka jira aysan jirin yu safiirkii intuu warqad soo saaro yiri safiir baa too meel heblaaya ku magacaab safaaradana wax ma dhisno ma jirto dhaqaale male budget male عود وأوجي دتك هذا نواجي باش كوزير كلا قاعد عندنا نكلو مكاهيل نمو صوم مجعابن نكلو قاعدين نمو صوم مجعابن بلغيست إيك هذه عبرتنا عن بلوغراي والله إيه بالله هذا سحرنا أنا سحر كي جبح هذا سحرنا أو الله يقري
oo sixirna sixirkiiga bax quraan badan bana akhristaan oo maleynaya balagis booska intuu ka qaaday iyo safiiran jirin oo waxba ka jirin iyo magacaab booskii wasiir dawlihi oo qaaftiyo diinta ee federaalka Soomaaliya ee beesha ogaadeen iskale waa haawanaya booskii ay lahayd beesha ogaadeen ee wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda waa haawanaya balagis miyuusan ku jirin farmaajo dagaal qabiil war miyuusan ku jirin isir safeen miyuusan ku jirin Soomaaliya adaan ku idin ilaa baashan waa 4.5 la qaybsanayo oo awood power share lagu qaybsanayo asaga waa kursiga 4.5 beesha daarood buu ku yimid maxaan ku sheegay waadano absamo kablaxow maxaan ku sheegay beesha absame saddex kursi saddex awoodood bay ku lahayd dawladda federaalka Soomaaliya oo maar oo saaxiibkay markii laga reebo oo wasiirka duulista hawada moogiye wasiirka ku xigeenka arrimaha dibadda oo xaq u lahayd oo power sharing ugu qoraya dastuurka ugu qoraya beesha ogaadeen uu haawanaya ninkiis kale aana xabsi guriga ku jira wasiir dawlihi oo qaaftiya diinta ee power sharing ka loo siiyay beesha absame loo siiyay uu haawanaya safiiran jirino feego beeno meesha aan waxba ka jirin buu meesha ku magacaabay hal safiir bay ku lahayd safiirka Masar beesha ogaadeen ku lahayd uu ka qaaday wasiirka waa safiirka wax ka qaaday bal dhageysa beeshka balac dagaalka uu ku qaadayeen anigu aamusnaa aan shib ahaaban wax yar idii ka shaqeyn dhageysa marka anigu ma nacas baan ma doqon baanahay iska sii nacamlay ma doqon farmaajo xafidullah ku sii hayaan sii noqda ilaa meesha waa 4.5 oo lagu kala qaybsanayo awoodda lagu qaybsanayo power sharing lagu qaybsanayo miyaa sii nacamleeya meel dadkii aniga aan ka dhashay eeladii aniga aan ka dhashay iyo dadkii aniga aan ka soo jeeday meel lagu gumaadayo axmeero loo dhiibayo meel hooyooyinkii Soomaaliyeed kismaayana umulihii lagu dilaya cunaqabateen lagu dhameynayo dhooblaya iyo afmadow gaajo lagu dhamaanay ma sii nacamleeya marka meesha garbahare iyo luuqna diyaaraduhu way tagayaan caawmaadii beesha caawinka galeydii loogu talagalay la geeri no socon ma isartay balageysto safaaradda Mareykanka warigeed 4.5 sharing waxa u qaadan jiray beelahan kablaxda u qaadan jiray balageysa farmaajo dagaalka uu galay ee beesha kablax uu la galay ee anigu ka dhowsanaa ee dhalaantu iga haysay ee aan lahaa war waa sax war hadu dumiyo Puntland war hadu dumiyo Jubbaland war wasiirka ka qaad war xubin naga gal asagana uu dhargayaan shabaabkoodana uu safiirka taliyaha ciidanka uu noqonayo idin balageysa safaaradda Mareykanka سفارة أمريكا 4.5 باشيرن أود شمال لوقش سفارة أمريكا كتال دي سي كتالو ولقد الله باش قبل لحبة سكالت أو شيرل مرلو قاعدين بقى بجري برنامج جرتين بقى بجري سنويك قدام بعمر عبد الرشيد يا أحمد عود يا مركل قصة تقو سنديه ورا زياد بر وجوج جري تاريخ الصح هاي إنه قاعدين أبصمة مش جوج جري ساسا لوك لقيب سنجر ميلا صومالي أود دي قبائل ذو يا سفير ذي أود ذا ميلا اللي سقوط تجيب بجري محو سميه فرماج dagaalka uu galay waxay ahayd inuu marka koowaad ragna camlayaale oo xoogaga wadaniinta la yiraahdo anigana social media ka barbagandayo inuu dalku qabsaday way shaqeyn waysa si khayr isku dhacay la kala tag meesha khayr wuxuu yiri anigu reerkanaga la gumaadi maayo farmaajada wuxuu yiri anigu reerkanaga in badan bay ciilayn dagaal baa galaya annaga meesha ku saarnay xoogaga wadaniinta annaguna waxaan runta sheegin xaqada sheegin muxuu sameeyay farmaajo muxuu rabay inuu sameeyo marka hore wuxuu rabay inuu marka hore ka adkaado Axmed Madoobe inuu ka adkaado ma garanaysaa Puntland in maamulada Soomaaliya dhan uu ka adkaado oo uu geysto bro ma garanaysaa ku reerka farmaajo u nacamlay kali meesha reerka farmaajo dad u nacamleeyo oo sida duqbulo oo kale tahay ma sha Allah in laanaha in uu meesha geeyo waxay nagu dhacayba garan mayn in Axmed Madoobe meesha ka qaado nacamleeyo geeyo Puntland meesha ka qaado nacamleeyo geeyo meelo badan nacamleeyaal u geysto oo kadibna xoogaga wadaniinta ay doortay 20 sano iyo sheekadii iyo buugi qarsoona uu hoos ku soo waa socon weys geemka waa fashil marinta arintii ayada ahayd waa fashilta hadda markii waxa taagan baan idin sheegay iyo pointiga iyo qodobka aan soo qoray ee aan ku wajahan reer Jubbaland runta u sheegay reer Jubbaland iyo qabaylada barta dagarow runta idin sheegay dhageysto farmaajo Puntland waa ka guuleysay waa laan dheerayaal dhalay oo xiniyaha labadii xiniyood ee burburra miiska soo saartay weey miiska intay soo saarteen meelan aniga iyo kuwa ila mid iyo dad badan oo Soomaali annaga ah waana ahaan doonaa lagu khalday iyo meel fog wax ka arkay iyo dagaalka ninkan ku jiro iyo qayaaliga uu ku jiro iyo argoosiga uu ku jiro markay arkeen iyo go'aan gaareen maxaa soo socda hadda oo Jubbaland ku soo socday idin sheeg farmaajo ciidan buu ruursanaya
farmaajo ciidan buu aruursanaya ciidankaas oo rabo inuu ku soo jabhadeeyo dawladda cusub ee dhalan doontana inuu uga soo jabhadeeyo Kismaayo Jubbaland uu ku qabsado ayuu doonayaa haddan idin sheegay arrinta halka u dhaysto hadalkayga aad u dhageysto hadalkayga aad u dhageysto reer Jubbaland inay difaac galaan baan ka rabaa inaad isdiyaarisan baan ka rabaa naxariis la idiima falin cid naxariis idin fashay male awoodiina iyo aqligiina intaad ku soo gaarteen macal anigoo idinka soo horjeedo oo indhalaanaha aqligiina iyo sharaftiina iyo karaamadiina ku soo gaarteen qorshaha hadda idinku soo socdo yaan idin sheeg awood dawladeed waa la idinka guulaysan waayo ahmaar la soo kaxaystana waa la idinka guulaysan waayo qorshaha hadda idinku soo socdo ee idinkiya Puntland iyo Jubbaland inaad ka gaashaamataan loo baahaya waxa weeye oo aad ciidamadiina tababarataan loo baahaya waxa weeye oo dhaqaalihiina midaysaan loo baahaya waxa weeye farmaajo ma soo noqon rabo he is not coming back anymore cid u baahan male ana ugu dambeeyo maanta wadi jeeda cid farmaajo u baahan oo soo celinaysa ma jirto laakiin farmaajo qorsho wata lacagii uu arursaday iyo wixii uu arursaday haduu dawladnimo reerkiisa wax kaga dhigi waayay Kismaayana gacanta ugu gelin waayay qorshaha uu wato hadda ee socdo ee bilowday waxa weeye inuu rabo inuu gada ka soo jabhaday jabhad aad u culus oo gada ma garanaysaa ay ka dagaal gasho oo hub badan loo geeyo oo rag badan oo la soo siray barta ay ka dagaal galaan ayuu rabaa farmaajo inuu sameeyo waana ta uu kula dagaalami doono dawladda Soomaaliyeed ee soo socota weey qorshahan hadda Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif lagu hungeeyay ee ummadda looga horkeenay qorshe uu farmaajo dagaheed balan bigiis balan ee markuu ku guul dareystay ee ahayd inuu maamulada dhulka la dhaco uu ka guuleyso nacamlayaalkeena markuu ku guul dareystay balan buu dhaqaaqay wuu ogay inuu soo noqonay balan bigiisa wuxuu ahaa inuu Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif ummadda intuu tusa u yiraahdo wa kuwa madaxweynayaal mucaarad asaa ku kalifay qorshe uu dabacsay waxa ay rabaan hal sano ka hor hadday sii sameeyeen waa naqshada isticmaal jir waxay rabaan hal sano hadda kadib inay sameeyaan hadda la sii qojeeya sababta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif loo qujeenaya media loo horkeenay ee loo laha waa loodho afkana lagu gelinayo waa loodho way dagaalamayaan loo laha ee ummadda loo tusay qorshe uu farmaajo siisa la xariibay oo raba inuu ka soo jabhadeeyo deegaanada gado kulana dagaalama Axmed Madoobe hatta haduu asaga soo muuqan inuu hadhow ma garanaysaa ku dagaalamo oo dhaqaalihiisa ku bixiyo Kismaayo ku qabsadaan dhageysta hadalkayga blueprinterka noocan buu u dhisay yahay si fiican oo wanaagsan u dhageysto Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif rag baa lagu dirayo media inay imaadaan waa lagu qasbay in ummadda la tuso la yiraahdo madaxweynayaal hore oo dalka soo maray oo mucaarada wakwa oo dhaaranayo oo leh wakwaas waxa weeye Muqdisho la iska saaraya waa lagu qasbay ragga afkaageeda laga gelgeliyay kasiya maag baana loogu talagalay bahdilaad in lagu sameeyo idaacada yimaadaan qorshe loogu talagalay oo la rabo in lagu soo jabhadeeyo barrito lagu soo jabhadeynaya farmaajo markii la weydiiyo ee la yiraahdo maxaad la jabhadeynaysaa muxuu yahay ciidankan gada ka dagaalamayo ee ula dagaalamaya Jubbaland iyo dawladda la dagaalamayo maxay yihiin markii la yiraahdo inuu yiraahdo hadhowdi waxa weeye Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud waa kay waagan madaxweynaha ahaa ay dhaaran jireen waa kan waagan madaxweynaha ahaa ay dadkooda ku dhex jireen waa kan waagan madaxweynaha ahaa ay mucaaradi jireen dawladda maxaa aniga tuka cambaar layga dhigay qorshaha la wato dhankaas weey qorshaha la wato iyo hawsha la wato taasi haddaan idin sheeg marka farmaajo ma soo noqonayo mana ku soo noqonayo Soomaaliya saaxadeeda siyaasadeed dib ugu soo noqon maayo dadkii waa dhameeyay Kismaayo waan ognahay cunaqabateynta saaran iyo dhibaatada lagu hayo baydhabo ummadii lagu dhameeyay ee nalaanta laga dhigay ee xabada lagu diray Itoobiyaanka loo adeegsaday yaanu ognahay Puntland qalaba siyaasadeed iyo corruptionkii dhaqaalaha la geliyay in la burburiyo ayaanu ognahay farmaajo wuxuu rabaa reerka gada degan ee asagu ka dhashay intii ka falaagooday way ka falaagooday wuxuu hadda ku daabulaya diyaarada ciidan oo rasaas iyo hub wada ku daabulaya
وحنا برتا كدسية جبهة حوق بدن وبيشي ساعة وبريت أساق كأمر قاطو يبرتا كأساسيا كي أساق كوري ماذا هل نبو كبقيي هل لنا يكبقيي أو سومال لماذا آمسنا أو إن الآن أنا قلنا هذا كوري قد كتور نكينا واحري نقيش نكي لأوري عبد الرشيد كوري جبل الله شقي سنة يباشا ومدحونا كدش فرماجة نكاسو كبقي نكي مالن عاد انتوقف سديب وقد كرو ركلو سميستي إذا بو برتا كاغا جريا إذا كاو حربا إنو بريتو وديب برهيرا له أساقرو أي كأمر قاتان دولة الصومالية إيمان دوتنا وكلا غرغرتمو أو هدو قلالاسا سياسة كوغليو أو هدو ذا حالات بريق نحن قطو ريج بلان يا كسماية أفمدو نحريس إذين مصر سعوتي وحان إذي شيغيا سيدا دقالك أوجرتين سيلا بجبارك إذا كينا توابرت حوقيني دقاليه نسكو جيشت والله نحريس إذين مصر سعوت نعيبو إذين قبانك المسؤول كي الصومالي حاسن نمو إذين قبانك الصومالي مدحويناك أنا إن بدن باد إلى هالليشين لكن ما تانو قاضي حقيقة ما تانو قاضي الريالة تيجو قاضي رب لان بالله اللي نجيش رب لان وحكستول إذا كده يكرو إذا كده والله أو بالله أو تالله الدجال وكدر فرماج والدجال معه الشباب دجال هول كله تمه دجال دل كله ولا دجال لميمة والدجال بيل قبل الحليرة هذا ولا دجال إنه disable كديو لبدا معمول أي مسؤول كي هنا يهيستان إنه disable كديو رب لان واد دجالنتين شو عبد الرشيد جنان هذه رب لان واد دجالنتين شو نكسر قروح بدن بعض دجالنتين دجال كينا سيل بجبارة دجال كينا سيل بجبارة oo difaacina si laba jibara in la idin dhaxgalo oo idin burburiyo raba diida Puntland Soomaaliya oon jirin oo la garanayn ayuu Puntland Allah u naxariistay adeerkay Cabdullaahi Yuusuf dhidabada waas wiilan yaro sala yimid cuqdadaysan oo annaga wuxuu dooro ma garanaysaa anigu maxaan dhikraa lacag imasi xilay masi waan sixraan قف سعران أو إنها دم لقشي أو وناقي فنانت إلهي كقري أو قبيلات ضد لو ما كوش محن دولي غير كاجا هلا دلوا دولي قلنا عملهم بكوجراري لكن رجب بلارو فرماج قرشو وتو حاوي إنه إذا أود له أو نقاليه الدولة الصومالية لو كبيو إنه دولو قرب هري يلوق يبار إيرك السماء والله إنه بيرهي وكوفا شلمي بولو سيجي قيبي حكم وكفش كسماية وكجا جولستي حدك يا سرارنا خير الله شيء ويسو أيوة سيد إلهي رنت إيتوس حقيقي وارق إيتوس أيوة إلهي هاوتوسو أو راجع إلهي هاوتوسو أو إلهي فينات هاوتوسو أو إلهي دب هاوسو عليا الله لكن قرشة هذا الصعود إذا كسوا وجهن هذا إذا كسوا وجهن والله وبالله طلع وحاوي إن فرماجو مركو حلك كدقو ولكدق يا سود كيجا أوبو يا روبا حلك مركو كدقو إن جبهد بيشي ساعة أو أود له أو نقال له أو حق له أو عيدا هيستو أو لعق بدن الله حدينا هيستو إنه الدجال يدكو سوق قادر ربع إثيوبيا تراهن كينيا تراهن إمارات تراهن قطر بتراهن تركيا بتراهن ملك استود لك عشان كرتان أو تكجر تجد دونتان جبهد يدكو سوق والله هو جبهد وين والله وبالله هنا نبينك الشجين وسوجب هذين يا حكتي صدق برهيا وسوجب هذين الربا إذا كاسوا الربا بريتين والدولة دنا كلها تقال ما دوتو جب لنا كلها تقال الربا وأنا مدحوني وأنا لا تصير دقيقة وأنا لا تصير مدحوني يال ثم والله كل أرض لكن واحد نوصل صعد وأنا مدحوني جب هذين الربا هدودي انتو نيروبي أما قدر أفريسو دقالها كوسوقرو هوبك كوسوقرو إذا كوسوقرو هذه بالدقيقة هذا حق إلهي بأن تصير رنت إلهي بأن وافجي dagaalka uu farmaajo ku jiray 3 sano ku soo taageeray soo reerkayga la dagaalamay oo cidayda xasuuqayo oo kayga halgeyga Itoobiya u dhiibay oo hooyaday cuna qabataysa ayayday ba qooqaani degan cunta male ayayday ba qooqaani degan cunta male isbitaal maadi karta doolow iyo garbaharayna diyaaradaha tagayo oo daawooyinka la geenaya $30 baa lagu dhoofiyaa miyaysan qabyaalada hayn miyaysan qurun iyo qabyaalada hayn أنا الدولة نبجعل أو عركة جعل أو صومال نبجعل يعني لو كل سعودي ما أنت كبر حاجة وصعنا نو أنت كبر حاجة وصعنا هو يبقى كل من يسقوقاني أبى في مدو كل من أبى اسمه كل من قاعد هراد كل من ولا أحمد مدو دجال كعد قشوت كقولست والله جبهدنا وفرماجة صوّدنا وتكقول سنة والله أو بالله أو تالله مقع إلهي بان كل دار تيادر مال فوق بد وحكاركش
rag dhalinyar baan nahay ay Soomaalinimadu qaaday oo calanka u qaaday oo damiirka Soomaaliyeed u qaaday baan nahay laakiin meel fog ba wax ka arkaysi meel fog oo aad u fog oo anagu dareemi karin iyaad meel fog ba wax ka arkaysi difaacaaga gal dagaalkaaga gal jabhadana waad ka guulaysan wallahi oo billahi oo tallahi jabhada uu farmaajo soo wado ee uu rabo argos kuturaan ciilan buu anig nin ciilan oo inuu argosto rabo nin ciilan oo argosto inuu argosto rabay waraasad qalbi dhac ku xirtaa ساد وزيرك حياك الرماة دبادة دمي وسوقتا وريا ساد وزيرك وقافتي الدينتا باسكي سيكون بنسا وريا ساد كسمايا كسرتا عنقبتا ساد ما قرس احمد مدوك ولا دقالتا مركات كواغا يا مال والبيتنا داقيه يا قليدي يا دقاليه يا بارت الله كان دقمين كاجي دقانا دا قيريش وريا ساد توبيان وقاعد يكستا مساكين بيد بجوكت وانا نغانا ونا عملينا قيانا قرن باكودا جري قيانا قرن باكودا جري ومد صوماليات بالإثيوبيان واديكسنيش ومد صوماليات أو إلى هاي صومالي كدقي عدوغا إثيوبيا هبا إثيوبيا ياي يا إثيوبيان واديكسن ورا بيد نبض إثيوبيان انتاد جيش ورا نعملين إن محاونا ورا واسحرناني قانا تقبرو أدبان أسحرنا إنها وحيقة الله مقري أنا أركينو إثيوبيان هو يدي دلي أنا أركينو إثيوبيان كلنا يا مساكين تايدي بيدو يان صوت واقع نوادي نول كويا ورا أنا أركي حمر إلا سكوبا بيري حمر إلا سكوبا بيري يلا سكوب دميري أو مدي قرح ورا الدولة النفط كذا أرجع الشيء بل لقيس حرب هذه الشيء سكريا هذا نكا داين الشباب وكسر قصد أمنيات كالشباب نكا قصر ريوها أو مسؤول رون الشبابوي أوكي نكا نوار حواك النوار مريحان محاكا تلي عيدك السردوك كده محاكا نحبس قلي أنا وحيابا يسوكي قبل الله كاسوي وحيابا يسوكي قبل الله إيه فهم الله إيه عن مقارنة الساية إسقبت سيوة وحيابا سقبت وريا واقب يالدوي فرماج جبهدو صوضو أدرك أحمد مذوبة إيه الريكو فرق البيت إيه الصومالي وين إيه ضدك الصوماليات ودن وانا كدكتور ذوي ولي من ريب بدلان بنادو الله هذليا ريب بدلان وديس أبل بو إلي كبير بهدلات بو إلي كسمي لقيش سيدا ضد قالنتين الشكو روح بدن بيه إن شاء الله هدو إلهي فرماج جوة تقيا كو هدا ودنيين تدكس فرماجة تاغيرتا ودنبات وحيان الله يابا كاس فرماجة تاغيرتا ودنبات فرماجة كورتبي ودنما ور فرماجة وقبيل وي ريرهان من ريحان بكسو جيدا قدانا وحو كدغاي مقرر ساي انو ديارada u fasaxo Kismaayo Jubbaland wuxuu ka dhigay inuu diyaaradaha ka mamnuuc soo qabyaalad iyo dagaal iyo barihiir aliya Kismaayaan qabsan ku jiro war nagala taga waxas dawladda Soomaaliya way dhisnaaysaa muwaadin Soomaaliyeed oo sax oo ummadan aan u kala ayxan oo dadka ma garaysaay aanan u kala ayxan yaa banaanka imaan doonaan taageeri doonaa energy-gan heynana ku bixin doonaa aad iyo aad baan idin salaamiya adeerka Axmed Madoobe iyo reer Jubbaland farmaajo 7 bilood kadib ciidan buu dhisanayaa 7 bilood ciidan buu dhisanay 7 bilood 8 bilood kadibna uu ka tagay xilkan wuxuu rabaa inuu soo jabhadeeyo oo gada ka soo jabhadeeyo oo Kismaayo qabsado oo la dagaalamo rabaa idinka dawladihiina la kaashada Ethiopia-dan Ethiopia nagu Ethiopia cadaway Ethiopia cadaw ku Ethiopia waa ka fiyooraha u dhigay oo sujuuday anaga qarnayno waxa anaga qarnayno ka socon Ethiopia-du fiyooraha sabab raggi laayay buu sujuuday raggi laayay يسوي dadkii laayay yuu sujuuday haye Kismaayo Ethiopia ku aw Ethiopia ku nabca farmaaji shalayto iyo farmaajaha maanta waa ruway dad badan bay la yaab ku tahay duqbilowgi radiyallahu anhu mudane maxamed abdullahi farmaaji ku in maanta runta laga hadlay sanad kan 2020 waa bilowday sanad cusub baa ii bilowday sixirkiina iga bax umada Soomaaliyeedna runta loo sheegay energy-gaygana umada Soomaaliyeed inaan lagu dhamin yaan go'aan ku gaaray oo wallahi oo billahi oo tallahi waxaan la reer Jubbaland ugu dambeynta farmaajo jabhad buu sameeysanaya oo gada hadda uu ka aasaya oo ciidankii iyo hubkii iyo rasaastii loogu talagalay dawladda federaalka Soomaaliya gada iyo baar dheeraa loo soo wadaa inaad ka tashataan oo go'aan ka gaartaan oo difaac gashaan yalla idin ka rabaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.